السلام عليكم ورحمة الله daawadayaal soo dhowaada maanta waxaan daba kacaynaa arrin aad u halis badan waa qiso ku saabsan sixirka ama aan dhahay midkiisa ugu halista badan sixirka madow waa sheeko ku dhacday laba gabar oo ka soo jeedaano dalka Czechoslovakia waxay jidka ka heleen kitaab oo loogu talagalay sixirka madow iyo sida shaydaanada loo adeegsado waxayna rabeen inay boroobeyaan wax kitaabka ku qoran arrimihii ayaa si qaab daran ku dhammaaday labada gabar waxaa la kala dhihi jiray Aniska oo 15 sano jir ah iyo Chloe Aniska ayaa haweenada uu roobka da'ayo ka mid ah waxay telefoon u soo dirtay saaxiibadeeda Chloe waxayna ku dhahday ehelkayga cawada meel ayay u socdaan marka saacadda markii 3 saac la gaaro gurigayga imaaw kitaabkii aan soo helaynay maalinkiina oo sixirka hore u soo qaad waxay qorsheynayeen arrin aad u halis badan labada gabar weligoodba waxay xiisayn jireen arrimaha sixirka iyo kitaab gaablooyaasha maalmo yar ka hor ayay buuggan waxay ka soo heleen qashin qubka wayna la yaabeen arrintiisa waxa uu ka koobnaay baalal ay ku qoran tahay qoraallo umar hore ah oo qadiimi ah buugga wuxuu ka sheekeynayay arrimaha shayaadiinta iyo jinka iyo sida loo dalbado ama loo adeegsado fikradda ah inaad qof sixirtana labadan gabar waa arrin ay jeclaayeen oo waxay la ahayd arrin awood u keenayso markii ay baxeen ehelkii Aniska wax yar kadib waxaa timid Chloe waxayna isku raaceen qolkooda gabdhaha way sugi la'aayeen farxadeena la boodboodayeen inay barooweeyaano buugga waxyaabaha ku qoran haweenkaas qorshaha ay barooweynayeen ayaa sidaan ah buugga waxaa ku qornaa in qolka mugdi laga dhigo miis alwaaxna dhexda la soo dhigo buuggana la kor saaro miiska kadib lagu hareeriyo 3 shumac oona la akhriyo waxyaabaha meesha ku qoran codkana kor loo qaado markii ay akhriska bilaabeen ayaa waxaa bilaabaday daahiyada inay ruxmaano dhaqdhaqaaqiyo qolka dhexdiisa ka dareemaano in lagula jiro camal ah gabdhihii cabsi ayaa bilaabeen laakiin akhriskii ayay sii wadeen Chloe waxay bilowday inay cabsato laakiinse waxaa dejisay Aniska oo ku tiri waa inay dhammaystiraano waxyaabaha ay aqrinayaan si ay u gaaraan ulujeedkooda ama uu shaydaan u yimaado si ay u adeegsadaano Chloe ayaa cabsidii ka tambadatay wayna awoodi waasay inay dhammaystirto qolkii ayay ka soo dhex baxday waxayna aaday gurigeeda guriga Chloe wuu u dhawaa guriga Aniska waxaa kaliya u dhaxeeyay 3 boos markay Chloe u sii socotay gurigeeda iyadoo hormaraysa meel biyo ay hor fadhiyaano ayay gadaasheeda waxay ka dareentay hoos iyada daba socdo markay gadaal ay fiirisay wax daba socdayna ma lahan wadada kaliyaday ku ahayd cabsi ayaa bilowday wayna qeylisay meeshay boodbood iyo cabsidaa ka tambadatay waqtigaana Aniska waa iska seexatay waa iska hurdaysay waxayna ku riyoonaysay Chloe oo meel biyo hor fadhiyaano ku tuuran oona dhaqaaqeelin wax miid camal ah Aniska markii ay hurdada ka soo toostay waxay fiirisay saacadda waxay dhammaysay 5 saac iyo bar isla markiiba waxay wacday saaxiibadeeda Chloe ayaa ka qabatay telefoonka waxayna ku dhahday Aniska is ilaali waxaan iigu dhacay kugu dhicin iyadoo qeylinaysa telefoonkana sii damisay qeyla zaa'id ah weliba Aniska ayaa aad ugu naxday erayada ay aragtay waxayna ka baqday kaligeeda inay sii jiifto qolkeeda waxay soo aaday qolka waalidiinteeda si ay ula seexato markii ay dhahday dabeesha ayaa ka cabsaday qolkeyga aabihii ayaa qolka ugu baxay si ay iskula seexdaan iyada iyo hooyadeeda aabihiina wuxuu seexday qolka fadhiga maalinkii xigay aabihii ayaa ku soo toosay qaylada naagtiisa naxdinta lahayd
markii uu u soo orday qolkii ay jiifeen wuxuu arkay gabadhiisa oo meyd ah, korkeedana ay ka buuxaano barbararo balbuluug ah sida qof feer lagu dilay camal. meel haddii feer lagu dhufto balbuluuga noqonayso maaha. inta ay gabadhan ku mashquulsan yihiin, askartii ayaa soo wacday, waxayna heleen meydka Chloe oo hor yaalo meel ay biyo fadhiyaano. riyada ay gabadhan ku riyoonaysay been ma ahayn. buuggii ayaa dhibkan u keenay. saad arkaysaa labada gabar waxaa u dambeeyey dhibkaas oo dhan waxaa u keenay waxyaabaha ay raadinayaan. intay wax badsada isdhahayaan ayay noloshooda ku waayeen. buug haddaad aragto ama waxyaabo sixir loo isticmaalo oo aad ka shakiso, haba soo qaadin. haddaa soo qaadana ha akhriyin. haddaa akhrisana ha fulinin waxyaabaha ku qoran. iska ilaali. akhriska xataa dhibaa kaaga imaan karo. haddaa buug noocaasi oo kale aa aragto, inaa gubtidaa ka fiican inta akhrin lahayd. iska taxadira. sheekadaada idiin cajabisayna muuqaalka ku taageera like, subscribe-na loo dhahaa. waad mahadsantihiin daawadayaal.